Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa taariikh nololeedka ninkii helay dhadhanka hilibka digaaga ah ee shiilan, kaasoo ahaa Colonel Harlan Sanders. Colonel Harlan Sanders waxa uu dhashay 24 Sebtembar 1952. Waxa uu ku dhashay waqooyiga Corbin, Kentucky, kaasoo dhacay United States. Bilowgiisa hore wuxuu beeroola ka ahaa gobolka Indiana ee Mareykanka, wuxuuna qaadan jiray bishiiba $2 oo keliya. Kadib wuxuu u gudbay inuu noqdo gooyaha tigidhada basaska waaweyn. Haddana waxa uu noqday askari muddo 6 bilood ah. Kadibna wuxuu shaqo ka galay shirkadda dab-demiska. Waxbarasho ahaan wuxuu wax ku bartay aqoon dirsi oo wuxuu bartay sharciga. Kadibna waxa uu muddo ka shaqaynayay maxkamadaha. Markii uu ka tagayna shaqooyin kala duwan oo badan oo uu maamulka ahaa ayuu soo maray. Markii da'diisu ay gaadhay 40 jir wuxuu bilaabay inuu diyaariyo cunto uu ka iibiyo dadka musaafiriinta ah ee fadhiya meelaha lagu sugo gawaadhida. Muusan lahayn maqaaxi wuxuu ku diyaarin jiray cuntada qolkiisa yaraa kaasoo ku dhaganaa meesha ay dadku ku sugaan gaadiidka. Markii tirada dadka cuntadiisa doonaya ay soo bateen wuxuu u guuray hotel yar oo ku yaala dariiqa, halkaasoo uu ka furtay maqaaxi yar taasoo qaadi karta 142 qof. Kadib wuxuu bilaabay inuu horumariyo sirtii digaaga uu ku darayay, sirtaasoo ka koobnayd 11 geed oo dabiici ah iyo noocyo kala duwan oo buhaarad ah. Harlan waxaa loo soo bandhigay inuu businesskiisa ku iibiyo lacag gaadhaysa $146,000, laakiinse wuu diiday lacagta. Sanado kadib nasiib darro maqaaxidiisii waxaa kusoo hagaagtay dariiq, kadibna meel fiican oo istiraatiiji ah oo uu maqaaxi ka dhigto ayuu waayay. Taas waxay sababtay inuu businesskiisa ku iibiyo lacag gaadhaysa $75,000, lacagtaas oo aan marnaba dabooli karin deyntii lagu lahaa. Markii khasaarahaas ku dhacay wuxuu goostay inuu shaqada ka fadhiisto oo uu qaato lacagta yar ee la siiyo dadka hawlgabka ah. Lacagtii ugu horeysay ee hawlgabnimada ku qaatay waxa ay dhaneyd $105. Da'diisu waqtigaa waxay ahayd 63 jir. Wuxuu ogaa in lacagta yar aanay kafeenayn isaga iyo xaaskiisa, laakiin marnaba isma dhiibin. Wuxuu bilaabay inuu iibiyo dariiqada sirta ah ee uu digaaga u sameeyo. Wuxuu ku wareegi jiray maqaaxiyaha ku yaala gobollada dalka Mareykanka. Sanadkii 1946 wuxuu helay tiro macaamiil oo gaadhaysa 600, kuwaasoo ka shaqeeyay nidaamkiisa. Ballaadhashada intaa le'eg ee isaga iyo xaaskiisa ay maamuli kari waayeen. Sidaa awgeed wuxuu go'aansaday inuu ku iibiyo hanti gaadhaysa $1 milyan iyo mushaar bille ah oo dhan bishiiba $40,000 ilaa intuu ka dhimanayo. Markii dambena kor ayaa loogu qaaday $75,000, isaguna uu noqdo la taliyaha mid ka mid ah maamulka sare ee shirkadda. Wuxuu dhintay Harlan sanadkii 1980. Sanadkii 1982 maqaaxiyihii Kentucky waxay qayb ka mid ah shirkadda Reynolds. Sanadkii 1986 waxay noqotay shirkadda Kentucky qayb ka mid ah shirkadda Pepsi Cola oo lagu iibiyay lacag gaadhaysa $840 milyan. Waxayna beddeshay magacii Kentucky oo ay ka dhigtay KFC, magacaas oo ka turjumaya in shaqada shirkaddu kaliya aanay ahayn iibinta digaaga ee ay ka ballaadhan tahay. Maqaaxidii noocan oo kale ahayd ee Shiinaha laga furay waxa ay dhacday sanadkii 1987. Taariikhdu markay marisay 2004, tirada KFC ee caalamku waxay gaadhaysay 11,000 oo maqaaxi, kuwaasoo ku kala baahsan dunida dacaladeeda. maanta muuqaalkeen intaas ayuu nooga eegay. fadlan hadduu ku xiiso geliyay muuqaalka like saar kuna soo bir channelkayga si ay ku soo gaadhaan muuqaalo kuwan oo kale ah.